daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij kale oo ka mid ah barnaamijyadeeni taxanaha ee had iyo jeer aad naga heli jirteen haddaan nahay bahda saxaafadda ee dalkan maraykanka aan u wariyay Saciid Jamaal mar kale aad baan idin salaamayaa waxaan rabaa halkan inaan dhowr qodob maantana aan ku taabto waxa ugu horeeya dagaaladan soo noqonaya ee ka dhacaya gobolka Sanaag galbeedkiisa oo runtii ah mid dhibaato badan dadka ku keenay hadday tahay naf hadday tahay maal hadday tahay waqti iyo xukuumadda lafteedaba dagaalkaas oo runtii ah mid la joojin karo mid laga hortegi karo mid aan loo baahnayn weeyaan waxa la isku hayaana waxa weeyaan wax aan sabab la isku dagaalamo aan lahayn oo muuqata runtii dowladda mid baan soo jeedinayaa waxaan u soo jeedinayaa in ay ka dhabayso go'aamada ay soo saartay oo ahaa go'aamo sax ah oo xaq in sharciga la raaco in qof walba xaqiisa uu eegto in kala xadaynta iyo kala celinta iyo kala xaq samaynta ay xukuumaddu yeelato inaan shacabku xaqooda gacantooda ku qaadan waxaa kale oo loo baahan yahay dowladdu inay daba gasho dadkii khaladaadka sameeyey waa la helaya waa inay isticmaasho hay-adaheeda sirdoonka waa inay hesho CID da isticmaasho waa inay hesho dadkii markii heshiiska la gaaray ay soo saareen qodobada ka dambeeyay ee meeshii laga filayay meel ahayn dagaalka ka soo qaaday waa in maxkamadda la hor keeno oo la xukumo wey dadkaas waa dad aan filayn yihiin dadkii markii hore waxaa sameynayeen dad isku dilay dadka walaalaha meesha ku wada nool ee isdhalay ee ilmaadarka intaanay ilmaabtiya habardar ha noqon waa dad ilmaadara marka waxa weeyaan qofkii sharciga fulin waaya dee wuxuu rabaa dalku inuu noqdo fawda wuxuu noqdaa inaan amar la qaadan dadkuna way eegayaan shacabku waa caruur marka loo eego xukuumadduna waa waalid way is eeganayaan haddii maanta kan waxba laga qaban waayo oo xaqooda la marin waayo waxa weeyaan beriritana kalena ku dayanayaan qabaa'il kalena ku dayanayaan kan sameey laftiisa uu sii wadaya ka lagu sameyn aargoos uu bilaabaya waa wax qofkaas iska garan karayo marka waxa loo baahan yahay dowladda wax kasta ha hoos garayso haddii xitaa dad kale ku dhimanayaan waa in dadkii lasoo qabtaa waa in maxkamadda saaraa sharciga lagu horumariya oo aan loo aabeeyeen dowladduna iska diisaa marashada iyo ay dib gurashada ugu guranayso inaan maxay ahayd waa lagu eegaya waa test waa tarigarayn waa imtixaan dadku imtixaamayaan bal wixii ay ku dhawaaqday inay fulinayso meesha waa meel fiican waa meel barwaaqa waa gobolkii dalka ugu weynaa maanta waddadii ugu weynayd baa laga sameeyey ummaddu way u socotaa way guuraysaa waa la isu wada imanaya intaa degan ma joogayaan keligooda waa loogu imanaya marka hadda iyagii deganaaba ay saa isku dilaan isku cunayaan dadka kale soo socon lahaa ee maalgashi samaysan lahaa ee horumar samaysan lahaa hadday xagga xoolada ku dhaqdo oo beera samaystaa ama beerihii ama ganacsigii caadiga sidee bay ugu soo dhiiranayaan haddii iyagiiba saas u cunayaan marka waxa weeyaan waa in meesha noqoto meel nabada meesha intaas milyan oo dollar la gelinayo maanta waxa weeyaan maaha in ay dadkeedu sidaa u noqdaan dad u fudud oo waxyaaba laga tegay casri jaahiliya reer hebel iyo reer hebelaan intaa ka dilay iyo reer hebel intaa ka dhacay dee cid ay macnuu samaysa ma jirto wax alla wax sheegaysa ma jirto qof walaalkaa islaamaa dishay qof walaalkaayahoo muxuu ahaatay kula degan oo abyaabtii kulabaa dishay aakhirana waa lagu sugayaa la soco aakhirana waa lagu sugayaa marka waxaana shidaanka iska naara cid maaragtay libin iyo ka helaysa ma jirto taariikhda dib u raaca dadkeenii soo leyn jiray weliba eriyadaas isku leyn jiray iyo soomaali guud ahaanba yaa libka haya maanta cida libka haysa ma jirto dad masaakiin baa ku dhammaaday xoolo dad leyn baa ku dhammaaday haddana hadhow toban waa la sumayaa shaaruun baa la iska dhunkanaya sooriya raalli ahoon baa imanaysa marka ka hortaga ayaa fiican ka dabatagu sharaf ma laha saasaan idiin sheegayaa meeshana ilaah baad ku daaburay dad walaalaha tihiin waxaana run baan idiin sheegayaa cidaad u dagaalamaysaan iyo cidaad matelaysaan ma jirto ma tihiin laba kooxood oo futbool ciyaaraya oo laba qaran matela oo tabadisa koobka soo qaadso hadhow saacabka loo garaacayo maya waxa weeyaan waa laba dhigac baad noqonaysaan laba wax matala noqonaysaan wax allo waxaad ummaddan u soo jeedinaysaan ma jirto dana taas waa taas taa marka laga yimaado maanta dalka waxaa soo gaadhay caawimo oo turkiga uu keenay runta aan malaynayo kii ugu weynaa uu keeno runtii aad baan ugu mahadnaqaya waxaan rajaynayaa in halkaa lagala sii wado haddii aadan hadalna waxaa hadal habartii xama siiso hadalkii la hadlay maanta dhowto inqilaab ka dhacay dalka turkiga
madaxweynaha turkigu Recep Tayyip Erdogan uu soo saaray go-aanka uu ku xirayay iskuullada uu lahaa ninkii kale ee muxuu ahaa Gulen ayuu muxuu ahaa xukuumadda Somaliland ay ka aamusteen ka jawaabin ayaa keentay inay markaa ay dhiilkaa gaadhaan haddii aadan saas kala hadal ama aadan tallaabo dowladdu samayn waxa weeyaan waxa adduunka ay ka helaysaa ma jirto dowladdu waa inay hadasho waa inay bartaan sida qaabka dowlad kastaba qaab loola dhilgarayaa jirta inay ula dhilgarayaan waa inay dowladda kala tustid interest ay kugu leedahay dana kaa leedahay hadday taada fuliyo taada waxba ka soconaynin marka soof noqotid maaha sida aad gudaha lafteeda shacabka maxay haytay ay tahay in aad u tustid shacabka inaad dowladda ugu jirto ayay adduunkana aad u baahan tahay inaad u tustid diblomaasiyadda inaad dan dalka kale aad u haysid iyadoo ay runtiisaan sheegay kala duwan tahay dal kastaaba dantu kaa raba ay gaartay laakiin waa inaad muujisid oo aad haysatid dadkii skillska ama khibradahaas lahaa ee adduunka la macaamili lahaa ee la dhiilgarayn lahaa runtii waxaa ugu muhiimsan meeshaan muddooyin ka hadlo wax allo wixii musaacadaad al-insaaniya la keenay musaacadad bilaadanimo taageerooyin bilaadanimo raashin la keenay from Hargeysa to Gabiley to Wajaale to Boorame Saylac ayaa la geeyey ilaa haddii ku qulqulayeen xaaraan weeyaan xaq maaha feer maaha dadkii bariga in layska ilaawo xukuumaddu uma dhalan oo keliya galbeed xukuumaddu uma dhalan galbeed oo keliya waxaan xukuumaddu soo jeedinayaa in ay xoogaygaa la keenay ay bari geyso oo ilaa bariga ugu shisheeya u geyso oo si daacad iyo cadaalad loo qaybiyo inaan joonyad laga geyn galbeed waa de xaq maaha heer ay gaadhaan in maxay haytay dukaama la dhigto liibiya alaabtii baa la gaadhay galbeed haddaad tagtii marka dukaamada yaalla habeenkii la isku caawin magacyada ku qoran hay-adu geynayin markay ka dhargeen si walba uga dhargeen waa dadkaygii in walada waan doonayna inay wax la siiyo waan doonaynaa in laakiin dee way dhargeen orana kari waayo war walaal anagu maasha allah ilaahay khayran siiyo watii bari xitaa cawskooda usoo rarayay laba bilo kadib iyaga ay baabaayeen haddana ragnimadii iyo geesnimadii reerbargu ay sameeyeen inay iyaguna sameeyeen bay galbeed yihiin hadday si garan waayeen dee waa in la iska qabto waa in runta loo sheego xukuumadda waxaa leeyahay dadka caadil u noqo dhexdhexaad u noqo raashinkan maanta la keenay waxaa iska leh from berbera to baran baa iska leh sool baa iska leh ilaa hawd baa leh waa inaan la geynin meel kale waa inaan la geynin saan sheegay hadda sida wararku nagu soo gaarayaan ama beryahanba ku haynay raashinkii markuu ka tira batay waxaa la gaaray heer la iibiyo heer sidii abaarihii daba dheer oo kale dhici jiray cuntooyinkii suuqa lagu helo kuwii xamar la geyn jiro ka suuqa kan laga helo dukaamada lagu iibiyo heerkaasaa la gaaray haddana roobaaday beerii baa baxay barwaaqadii waa baxday marka waxa weeyaan dadkan raashinkooda siday u xidhan yihiin waa in loogu geeyaa dowladduna waxay gelaysaa doorashay gelaysaa waxaan filayaa doorasho lagama rabo keliya galbeedka shacabku badidiisu waxay jiraan berbere wixii bariga xigay jiraan iyaga laftooda xukuumadda inay iska tiirisay u baahan tahay tusto inay dan ugu jirto maanta madaxweynaha dalka haya oo shaqo badan qabtay oo ummadda wax badan u qabtay laakiin haddana dareenka ku jira dadka reer Somaliland ee gobolada dhexe iyo kuwa barigaba waxay aaminsan yihiin in aan sidii xaq ahayd wax loogu qaybin loogu sad qaybin sad bursi ka dhacay meesha hadday tahay manaasiibta kooxaha hadday xukuumadda hadday tahay hay-adaha hadday tahay maxaa haytay wax qaybinta cadaaladda waxbarashada scholarshipka waxaa weeyaan waa in haddaba la soo celiyo kalsoonidii shacabka in la soo celiyo weyn waxa aan hadalkii kusoo gabagabeynaya maanta wax badan ma rabo inaan halkan ka idhaahdo waxa iyadana aan runtii aad iyo aad usoo dhaweynayaa hadallo sheegaya in madaxweynaha iyo muxuu ahaa professor axmed professor cali khaliif galeer oo ah madaxa ururka khatumo in ay kulan sida la sheegayo ay ku yeelan doonaan imaaraadka war la hubo maaha laakiin haddii ay dhacdo xitaa kulliba process waa socdaa xukuumadduna hore uga ballan qaaday inay kulan la yeelanayso soo dhaweynayso wada hadallada cali khaliif iyo group-kiisuna way sheegeen maaha la yaab leh inay dhacdo laakiin waxaan rajaynayaa inay wanaag ku dhammaato waxaan rajaynayaa in gacmaha la isqabsado oo meel loogu soo jeedo qadiyadda Somaliland iyo taa wada dhalashadaba ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan kusoo khatimo oo aan mar horan ka hadlay
waddooyinka maalin walba shil baa dhaca war maalin walba shil baa dhaca war maalin walba shil baa dhaca shilkaa markii dalka anu aan tegey ee aan eegay wuxuu ka dhacaa majority-ga xitaa speedinka maaha baabuurtu way soconaysaa waan eegay speed ku soconaysaa ama surcada ku soconaysaa ama xawaare ku soconayaan mararka qaar waa yara badan yahay laakiin maaha wax badan oo la odhan waa waali maaha marka looga baabuurta caalamka kale say u socdaan laakiin horta waddadu way dhuubanta oo waddan berbere iyo udhexaysa iyo waddooyinka oo dhan way dhuuban yihiin ma garanay wax saa loogu dhuubay laakiin yeelkeeda haddana taa waxa kasii xun waddadii ayaa godad ka samaysmay godad baa ka samaysmay godadkii ka samaysmay waxay keeneen in baabuurtii ay ku dhacdo marba gebgebgebdisa hayso ay gudihii ka furfuranto hal mar marka dambe uu gaarigo socda oo birtii u baxdoodna uu gidaar jeego waxaa kaloo dhacda in godadkii daldaloolay sidii uu qof gaarigu uga leexanayay ay mid kale iska hor yimaada dowladda iyo shacabkaba dowladda waxa weeyaan dadka qaar baa yidhahda xukuumadda wax walba maaha xukuumaddan taageersanay anugu xukuumaddan taageersanay maaha laakiin waxa weeyaan dee meesha waa dal maanta la aqoonsanyay manihin dal maanta IMF iyo World Bank waxsiya manihin waxa weeyaan waa inaynu wax isku tashanaa inagu marka gobol kastaaba ama labadii gobol marka saaxil iyo meesha gobolka la yidhaahdo muxuu ahaa marojeex ama hargeysa dee hanti way leeyihin qalabna way leeyihin ma aan lagu samayn karo waddooyinka oo dadkii arkayay waxay soo dejsanayeen waxaa keliya loo baahan yahay waa 200 oo foostood daamiro iyo intanoo chaya iyo intanoo iyo maxay ahayd saacado kooban oo si adag oo fiican loogu sameeyo haddii uu badato waddada min berber ilaa iyo muxuu ahaa hargeysa oo runtii majority-keedu ka fiican tahayba inteeda burbursan u malayn maayo inay wiig ka badan qaadanayso haddii la badiyo la wiig ka dhigo lagu adkaynayo ta kale baabuurtan maraysa qalabkan la keenay ee lagu miisaamayo waa in miisaanka iyo waddada la soo eega injineer tagaan la qiyaaso waddadan gaari inteen lag bay qaadi kartaa culayskiisa ay qaadi karaysaa dabadna marka la yidhaahdo gaari 8 tana 12 tana waxaas maartay miisaankaas waa in laga dejiyo gaariga waa in la dhigo gobolada meelaha dhexaan la dhigo magaalooyinka dhexaan la dhigo labada magaalo kasoo bilaabay socodkaan la dhigo si xaggan loogu soo qiyaaso xaggan gaarigii lagu helo miisaanka ka badan in lagu qaado dembi adag baabuurtan faraha badan leh especially kuwan xabashida meesha maraysa iyagaa leefay laamiga intii magaranaysaa la hagaajiyey la buuxbuuxiyey iyagaa leefaya meelo qaar buuxis keliya ficmis waxay baahan tahay in inta la jaro in la dhigo muxuu ahay qayb la dhigo cusub la dhigo baahan tahay marka miisaankaasna waa in laga shaqaysiiyo waa in muxuu ahaa sida ugu dhaqsaa badan waayo faa'iido badan baad kugu jirta waddooda ku badbaadaysa muxuu ahaa baabuurtan meesha maraysana haddii ay fulin waayaan oo ay sharciga fulin waayaan waa in cashuur laga qaadaa maxaa laga ganaax waa in laga qaadaa runtii booliska iyo xukuumadda waxyaabahan kusoo arkay waxaa ka mid ah lacag badan ayaa ka khasaarta oo dhaafta waxa weeye ganaax badan oo aad arkaysid oo ay qaadan lahaayeen ayaa iska dhaafaya baabuur leedhacas dhaafaya baabuur muxuu ahaa xoog ordaya baabuur jid hal dariiqa dhinac kale usoo gelaya cidna la hadmayso haddii la hadlaana waxay kaa qaadanayaan askartu laaluush oo waxay korayaan maxaan ku geeyaa customka anuu custom laisku xidho ma garanaya gaar lagu xidho booliska la isgeyn jiray gaadhadu khaldamaya oo waliba aad bixin weydi midda kale maxaaba keenayba custom aniga askarigu yaanu kaashi weydiini yaanu kaxayn igu khasbinan taga saldhig uu xidho ila dembi kale man gelinay nambarkayga u arkaa aqoonsigayga weyn sitaa ha qorto hay ganaaxo berito markaan gaariga cusboonaysanaya sharcigiisa haddii aan soo diri waa inta ka horeysa waa in qofka marka hore loo diraa oo telefoonkiisa loogu diraa lacag soo dira hadduu soo diri waayo marka uu cusboonaysan gaariga in laga jaro wey lacagtaas oo laga qaado weeyaan laakiin in maxay haytay qofkii la yidhaha on spot keen lacagtii ama hadhowta laaluush badan baa soo gelaya waan aragnay waana laga qaaday annaga marka hadalkii dhammaan waxaa leeyahay waddooyinka ha la hagaajiyo miisaankan ha laga shaqaysiiyo runtu aad iyo aad bay ugu baahan dadku runtii aad ayaan idin salaamaya maanta hadalkeed ku badin maayo runtii waxaan doonaya inaan maxay haytay
barnaamij kale oo aada u faa'iido badan idiin soo diyaariyo insha allahu tacaala weeg soo socda. aad iyo aad ba u mahadsantihiin dhammaantiinba. waa mar labaad iyo wariis ciid jamaal iyo cariga maraykanka. waqtigu ha idiin fiicnaado. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.